maanta halkan isugu nimi in aynu halkan ku kala saxeexano Khaatumo iyo Somaliland heshiis aad iyo aad u muhiima oo masiiriya oo insha Allah bidni Ilaahi al-Kariim inoo horseedi doona reer Somaliland nabadaynu ku naalanayno barwaaqo wadajir iyo midnimo shirkan isugu nimi wuxuu ka mid yahay oo qayb ka yahay shirar hore labada guddi ee labada dhinac ka socota ay ku wada kulmeen Addis Ababa iyo Djibouti ujeedaduna waxa weeye sidii looga gaari lahaa ee loo soo afjari lahaa tabashooyinka amba isfaham la'aanta ka jirta qaybo ka mid ah Somaliland dhexdeeda arrinkaa runtii waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo siday ugu dhabar adeegeen ee ugu adkaysteen go'aamada geesinimada leh ay u qaateen guddiyadii labada geesood ahaa ee ka qayb galay waxaan si gaari doonaa in xuso professorka cali khaliif guddoomiyaha shabac naftiisa faysal حق دينا كلنا واحد حجينا الحين حسو فيصل محمد حاجي آدم محمد ظاهر محمد كاهن كنت هذه بي أمهاتين وحنو وضع درنسنا هاي عليسك أرهنك أنو كوضع هذا اللي أن إن شاء الله كنا وده شيني ورن هذه العلوس رنتي ويا حيال كاكسو بحا وحي سامين يعني ومدينا مان تبرت وحلا جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى خير هيدا كسيو waxaan jecelahay inaan dul maro heshiiska dabadeedna hadalka waxaan siin doonaa xubnaha inta kale dabadeedna waan kala sixan doonaa insha Allah bidni al-Kariim labadii ilaa 16kii bisha aynu ku jiray June ku sugnaa magaaladan Hargeysa wafdi ka socda Khaatumo oo kulamo la galay madax ka tirsan Somaliland kulamadaas oo ku qabsoomay jawi wanaagsan iyo niyad sami waana uga mahad celinayaa labada dhinacba ujeedada kulanku wuxuu ahaa sidii safgarad loogu soo afjari lahaa kulamadii taxanaha ahaa ee lagu qabtay magaalooyinka Addis Ababa iyo Djibouti wada hadalkana looga meedhan lahaa waxaa la isla gartay mudnaanta ay leeyihiin wada jirka wax wada lahaanshaha nabad ku wada noolaanshaha horumarka iyo meel uga soo wada jeedka cadawga dalkeena iyo dadkeena kuwaas waa mabaadi'da guud weeye laakiin waxa lagu heshiiyey wadabadan soo socda in Somaliland iyo Khaatumo ay ku tuntuunsadaan sidii isafgarad buuxa loo wada gaari lahaa in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa Somaliland loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad maamul wanaag xaq dhowrista xuquuqul insaanka ku dhisanna diinta islaamka oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin markaas waa sinaan iyo cadaalad sidii loo heli lahaa in dastuurka Somaliland la furo si loo xaqiijiyo awood qaybsi sugan oo cadaalad ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fulinta sharci dejinta garsoorka
iyo hay-adaha dawliga ah in la sameeyo maamul daadejin heer gobol degmo iyo magaalo lana qeexo mid walba awooddeeda in shir dambe la isugu yimaado 10 bisha Julaay laguna qabto magaalada Burco si loogu dhameeyo wixii qabiyo ah lagana tashado qaabkii iyo hanaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay aad buu mahadsan doortay inta way qodobadu aan ku heshiinay waa qodobo runtii aad iyo aad u muhiima oo fariimo muhiima xambaarsan way ka mid tahay sinaan iyo cadaalad sidii loogu sugi lahaa Somaliland geedi socodkuna waxa weeye in shir weyne marka ugu dambaysa la isugu yimaado si qodobadan kor ku xusay shir weynaha loogu gorfeeyo oo loo qeexo oo meel la isla dhigo maanta waa maalin runtii taariikhi weeye inta halkan fadhida taariikhda geli doonta insha Allah billahi kariim waxay noo horseedi doontaa insha Allah nolol wanaagsan iyo nabad wanaagsan iyo barwaaqo iyo mustaqbal dhalinyaradeena ay horseedi doontaa insha Allah billahi kariim islaax ku salaysan waxna waa islaax bayna naas muslimiina waynu nahay marka intii ka soo shaqeysayna mar labaad waxaan leeyahay jazaakum Allahu khayran